ما شاء الله تبارك الله. وبعد waxaan filayaa waa hal la xoogsado wixii laga hadlayay waxa maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya ayaa waxaa soo maray nin aada u xooggan dabeetana saxaabadii meesha fadhiday rag ka mid ah yidhi low kaana hada fi sabiili illah hadduu arrinkani ahaan lahaa xooggan iyo lagu isticmaali lahaa ilaahay jidkiisa iyo jihaadka khayr bay ahaan lahayd bay tilmaameen dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haddii uu carruur yaryar ka yimi oo uu iyaga quudkooda u dadaalayo jidkii ilaahay buu ku sugan yahay hadduu laba waalidoo gaboobay ka yimi oo iyaga uu dadaalayana fii sabiili illaahi buu ku jira haddii uu ordayo un lafihiisa inuu dhowrto oo isagu laftiisa oo qura inuu nafaqeeyo uu u socdana fa huwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi idan xadiidka nebigu wuxuu inoogu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofku inuu xoogsado aanu wax baryini inay ka mid tahay fii sabiili illaahiga diintu sheegtay qofku inuu xoogsado oo aanu noqon qof wax baryaya baahida badanina daraasaadka iminka sameeyaan qaar ka mid a waxay tilmaamaan carruurta ku korta bay yidhaahdaan qaybaha faqriga ah statisticsku waxay sheegayaan bay yidhahdaan 25% inay jaraa'imta dadka kala noqdaan halka bay yidhaahdeen kuwa guryaha qanigaa ku kara 1% uu ka yahay waa daraasa ay meel ku sameeyeen waxay kaloo tilmaameen daraasaad ay samaynayaan jariimada ay dadku galaan bay yidhaahdaan boqolkiiba 8.6 yani 9 wax ku dhow jaraa'imta la galay oo dhan sababteedu inay ahayd xoolo raadacayn idan in la xoogsado laakiin maalka dariiqo sharciya loo xoogsado ayaa ah waxa mudnaantana leh walaalkeenna malaa buuggiisa uu kaga hadlayo oo dhiirigelinta badan uu samaynayo nusuusta qur-aan iyo xadiis balana ay tilmaamayso inaad hodan noqotaa yani shareecada mubaaxaadkay ka mid tahay yani haddii faqriga la caayay xoolaha badanina dee hadda ammaan badan ma leh laakiin waxay idhaahdaan ummadi ma horu marto haddaan faa'id jirin ummaddu waxa ay cunayso wax ka koreeya haddaanu jirin cid soo saarayso hadduu nin waliba yidhaahdo beriska quran soo saarayaayo socon mayso markaa dee waa jugjugto halkaaga joogtay sheegayeen yani ummaddu horumar samayn mayso waa laabud inay jirto ummadi hadday horumarayso cid faa'id samaynaysa cid dheeraad samaynaysa wax ka dheer wax la cunaya cid samaynaysa waan jeclay inaan iska soo koobo shaqo la-aantu waxay yidhahdaan dunuubta badan bay ka qayb qaadataa waxay yidhahdaan tafakuki lusri guryaha burburkooda wax badan odaygu hadduu wax soo waaye bay yidhaahdaan dee xayraankiisaa bato islaanta iyo carruurta iyo gumaadkoodaa tiro bata furitaankaa tiro bata bay yidhaahdaan waa ka mid bay yidhaahdaan tafakuki lusri waxyaabaha keena tafakuka bulsheed buu ka mid yahay jaraa'imta bulshada tirada badan leh ee tuugo iyo rishwo iyo musuqmaasuq iyo isweydaarin tiro badan qaybo badan waxa u sababa dadku inay kifaaya waayeen inay soo saari kari waayeen wax noloshooda ku filan sidaa awgeed wax kastoo dhiiri gelinaya in ummaddu xoogsato oo xoogsi xalaala xoogsadaan dhallinyarana ku dhiiri gelinaya inay hore u koraan iminka qaangaadhku dee soddon ku dhaafay berigii hore 15 baa lagu qaangaari jiray laakiin imika waxay moodaa in qaangaadhku wixii soddonka ka dambeeya inuu noqday sababtuna waxa weeyaan waxa la garan waaye sidii loo xoogsan lahaa ama meeshii lagu xoogsan lahaa marka mashaariicdan walaaladu wadaan hadday aqoon soo kordhiyeen tilmaamaysa qaabkii loo xoogsan lahaa waxaan isleeyahay waxay ka qayb qaadanayaan dadka faqrigoodu inuu yaraado taabagalkooda iyo howlkarnimadooduna inay badato in waktigii hore lagu qaangaari jiray in lagu qaangaaro oo dadku dee ninkaasi waa 20 jir baa la odhan jiray waa nin dunida soo dhameeyuu ahaa iminkana 20 jirku wali waxaa fadhi salaatu cunaa
marka in la koro waa ka mid waxyaabaha walaaladu tilmaameen idinku badin maayo hadalka un shaqo la'aan iyo xoogsi la'aani politicska waxba yeeshaa dhaqaalaha waxba yeeshaa bulshada waxba yeeshaa guriga waxba yeeshaa wax walba xoogsina ummadda nafcu ku soo kordhiya in every aspect loo sheego shareecaduna waa dhiiri gelinaysaa in dadku xoogsigooda ay u dhaqaaqaan marka waxaan idin leeyahay walaaladuna iyana waa xoogsadeena waa ugu ducaynaynaa in alla u kordhiyo idinkuna dee xoogsi taga asalaamu calaykum